على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxda iyo mas'uuliyiinta kale shacabka reer koonfur galbeed dhammaan waa salaamaya waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo ixtiraamka iyo qadarinta qalbiga furan ee lagu soo dhaweeyay aad iyo aad ay u mahadsan inta kadib magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka waxaan leenahay dadkeedana waa mahadsan magaaladan magaalo taariikhi ah Soomaaliya taariikh badan ku leh duruufii kala duwan oo dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaye waxaan u soo booqanay oo u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah salaan iyo marxabayn iyo duruufooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadano waa qodobka ugu weyn oo ahay labada qodob waxay kala yihiin mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan in la nabadoobo la walaaloobo heshiiyo Soomaaliya heshiisa dunida heshiisa waxaan rabnaa Soomaalida inay heshiiso nabaduna ma deegaankan caam ku yahay dib u heshiisiintu caam ku yahay dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka Soomaaliyeed soo dhaweyntooda meesha sababahan uga bilawnay booqashadan halka uga bilawnay ayay ka mid tahay waxaan rabnaa ku baaqaynaa arintaas waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kasto ay joogaan in la midoobo la isqalbi xaarto fariinta ugu weyn aan wadnaa oo aan la mari doono dalkoo dhan ma Baydhabo inay u gaar tahay dalkoo dhan aan la mari doono waa midaas hadii alla yiraa Soomaaliya heshiisaan rabnaa markaan anagu heshiino cadawga iska dul qaadi karnaa caalamkan waa la heshiin karnaa caalamkan waa la heshiin karnaa annaga dadka dhaxdeena ee tan kale dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha alxamdulillah ilaahay ma hadla magaaladan Baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiican ka da'ay markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka Allah siiyaan leena duruufaha dadka soo maray xilliyeedii dhawaay ee abaartu ay keentay xanuun badan ay nagu hayaan dadkaas duruuf Soomaaliyeed ee duruufaysan inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay si aan fariintooda u gaarsiino Soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin deegaankan kaliya kuma noole deegaano badan ay ku nool yihiin mid walbana markaan tagno waa qiimeynteeda iyo dhaxgalkeeda iyo soo dhageysigiisa ayaa ku jiri doona walaalayaal waxaan rabaa dadka Baydhabo markale waa u mahadcelinaa baaqayga waxa waaye qalbiga aan ka midowno qalbiga aan ka heshiino qulubteena aan soo furno si cadawga aan isaga celino qodobka labaadna waxa waaye dadka walaalayna waa u duceynaynaa roobka maanta Ilaahay keenay asigoo badan oo nabada in Ilaahay u keeno fariinta iyo duruufaha aan ku aragna dadka Soomaalida waa gaarsiinayna caalamkana waa gaarsiinayna hadii aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi